لأن علماء كمذا عالمة مالين مثلا قصة عجيب ونوشك يوحيري عبد القادر جيلاني الله أقول حريسته شيخ عالم والرباني يبوها أنت أنو أنك أقارنه سقوير أقوم بوها هو يدي بكرستي لأن مركب العقد في عنتي جيبه وقردي سفر مقالة والسعودة بيكون درتي كتري أرضوا مقالة قالوا مساجد قالوا علم الحلقات كعلماء علم كبريسا أرضوا علم كعلماء كصبر وسفر كالرعب كتري سفر كي والله السعودي أيا نمن موريانا أيا نحذا أقلي بالليلي وهبين مدو وقرعدا dadkii markay arkeen tuugtii inay gacanta ugu dhaceen qof walba wuxuu haystay buu markaa qarsanaya yarkii yara ninkii u horeeyay tuugay qabtay baa weydiiyo ku yiri wariya wiilka yaro adigu maxaad wadataa waxa li wuxuu lacag watay buu banaanka soo dhigu sheegay baa la yiri markaasuu yaabay lacag inta lag baad wadataa ha aaway waa batan uu ka qaaday wuxuu ka naxay markaa wuxuu maxaad ka dhigaysaa lacagtan hooyaday baa ay soo siiso magaaladaan u socdaa waxaan u socdaa طالب العلم baan ahay cilmiga inaan soo barto ayaan doonayaa lacagtana markaa waa masaariiftan cunayay weeyaan inta oo sanadood markaa buu adeer maxaad iskaga sheegtay buu maxaad u sheegtay mad qarsatidaa buu ku yiri dadku waa ku wada qarsanayee wuxuu hooyaday baa igu tiri waligaa been ha sheegin haddaad beenalow aad noqotaa ilaahayna uu ku nici bini aadamkuna way ku nacayaan ajiib gacanta intuu qabtay ayuu u geeyay baa leeyay ninkii dhanaaye tuugta ugu sareeyay bal ilmaha yar wuxuu leeyahay dhageyso lacagta inta lagna u wataa oo muxuu yiri lacagta inta lag buu wataa uu sheegay maxaad u sheegtay baa ku niri wuxuu yiri hooyay igu tiri been ha sheegin haddaad been la noqotaa dadkuna way ku nacayaan ilaahayna uu ku nici waana run been alaha ilaahay baa nacab been alaha dadkoo dhan baa nacab iska daa muslimiinta been alaha gaalada nacab لكن توقت أقوينا أقوي بالله سيد المير بو برورتي مركز الله قصة والرول محل له يدي محل له يدي وعره هو يدي هذا أسقى هو يدي وكلا لمن نقول له هيد أنا قلنا توق من نقدم بيودي أنا كتربية دي هراء يجا حماتي وحالك أن كفهم يا يركا هو يدي ومربيات المهاير هذا الكي هو يدي بوفليي وهو هيصور دم بنان كي نوكيني إنكنا أمرك إله إن توجبني oo tuug noqono umada aan dhacayno ayaan halka u fadhinaaye waxa iga balana maanta laga bilaabo ciidan badhici maayo yarka lacagtiisana u celiya dadkana sii daaya aniguna masjidkan galay waar toobadkeena salaamo buu halkii kaga dhaqaaqay ninkii tarbiyada hooyadu waxbay badishay ogow hooyoy haddaad hagaagtidna ubadka inoo hagaagi ubadkuna waa mustaqbalka diineed mustaqbalka dadeed mustaqbalka dalkeena weeyaan hadday noo hagaagaan ubadku waxay ka dhigan tahay dalka ay noo hagaagay hadday dumarku inaga baanaadaan oo haweenku ay baanaadaan waxay ka dhigan tahay dugsigii hore ayaa inaga xumaaday dadna ilmuhuna uu xumaani ilmuhu hadduu naga xumaadana mustaqbalkeena dambe uu baabeey ogaada markaas marka walaashayda muslimada iyo hooyadeeda muslimada waxaan nafteedana ugu nasteexayn inakana inagu nasteexaynaya inaan shaqadeennii aan ku noqono dhadhaar walba halkii la dhigay buu qiimo ku leeyahay raggana mas-uuliyad baa saaran haweenkana mas-uuliyad baa saaran mas-uuliyadda haweenka saaran waxa weeyaan inay gabadhu noqoto gabadh waqarna fii buyuutikunna ku shaqaynaysa gabadh hadday gurigeeda ka baxaysana iyadoo jilbaab wadata aqaladeeda ka baxaysa banaanka uma baxaysa ilaa iyadoo jilbaab wadata mooyaane xishoodku fiicana haweenkana ku sii fiicana hadday inantu guriga ay ka baxda baa la yidhi inantaasi kuma noole ogow inantu waa inay aqalka dhex fadhidaa hooyaduna waa inay aqalkeeda fadhidaa waa aqalka fadhiga maxaa loo fadhinayaa xigmadda dumarku aqalka u fadhinayaan waa tarbiyadda awlaadda ugu horreysa ogow وعمر الفاروق رضي الله عنه أيا وحو أورنجري أولاد تربية ودمركو كهلا يو تضبط السنة الرئيس المها وحو أورنجري العيارة تضبط كو حكتنا بأورنجري تربية يو وحبره إدبية تضبط كو حكتنا بأورنجري المهين الله صاحبة كوبي الله باتنجر المه مركو قاننا حرقي سقورت أسرو مقالة قلبون هديتو مقالة حكر عليه لكن وقورما وامرك التربية ده هو صامر علمه تضبط هورا ولا لا عيارة سدين ولا عيارة يا وقت وين لو بحيا علمها لا فريستو او وحلا برو ولا تربية ده
أبيه وادو جدايا أبدك أبوه علاقة مله وعلى جاي أبو عليسك أنت أبدا ما أنت أقلنا هو يدا يكون داعي تربيته هو يدنا مدة ولا يسوع مدة ما يستر ما يسوع إلى هاي اللي بدو في سجاس كده اللي تري هو يدا الصفات أبدا إلى ده هاي وأنا حريص ويا أباهنا الشدة يا الله يقانا أديك لبدا مركا ولا يسكت اللي تري وأبي بكر يا عمر أو كلويا أبو بكر إن حريص بدل حريص بدل بوها وجلعسن عمر بن الخطاب إن أدق بوها ووحك لكم أتكيني إلى شرعي سوكو أتكايو قفك هوري ما عمر بن الخطاب بعيد سوم شجع كريم بقى والله بدا صفة مركا لو باهية صفة هو يدنا ولو باهية إن حريصتا صفة أباهنا ولو باهية هاي وعيالك أنت أبدا أقومها أفرسدا تربية دو دنع بأبدا دنع هذا هو يكدم ترى دنع بأبدا هذا أبا كدم تنا هو يكو أكهرانا تربية دو دنع بأبدا لذلك الله بدا قفواس كل اللي تريين أبوهنا وينو عيالك سوقت وكبحيا وكل تربية أخلاق دو وناكسن يدقك وناكسن والنبي عليه الصلاة والسلام وحوي مجري نبي فاطمة ويمجري فاطمة أو ابو نبي كوري حسن يا حسين مركا بيتر أبو واقع يا نوبري بيتر واقع يا نوبري أنكم ماركتان قود لقوت أقل كأيسن أولينو علي با يقاضو وهنتو دي حقا أولك عبي كتري مركا ابو نبي علي كدب يمد رضي الله عنه وأرضاه وحوارك علي بن أبي طالب ونن يهودية بيها بيرتيس وقصبا وقدامنا وبلدقي بيا وصوص عربا هل تمر اللغو سينا يا مشقايد مركاسو إن دور انتو شقيي تمرتي وشقيي بو حسن حسين انتو سيي بيهنا انتو ضربي جيتكو هس عياريا على نقول عيل كيف كجرايو نيكي يهودكو بيرتا ودامنا يا مركابو النبي صلى الله عليه وسلم انتو يمد النبي ايو حسن حسين بالله فريستي جيتكو هوستيدو النبي كلا عياري مركاسو علي با ارك النبي يمدو حسن حسين لا عياريا لأن مركب النبي كوير يا علي لا بد يدوي العداد وانت ينكلوا ما دي قاد دخلك يقول علي السداع مركب يا رسول الله يكي ما أنت وحي عنان ويهل أنا وانسيه فاطمة نقلك كجاي من نوقع جوني سوني يروش غير إيك هذا بوكيري نبي قمد هنا ما أورن لا بد هذه ويلنا واضوش قيسوات كسوق هذا أقلك إن أنت يدينك جاج آيات كل شيء ورقد إذا كان ما أورنه نبي عليه الصلاة والسلام أمد ودسايي reerahana uu dhisaayay meesha uu ka fikirayna waa aakhiro weeyaan adduunyada maaha uu la ciyaaray xasan iyo xuseyn waxauna ka yidhi caliyow labadeedii wiil cidaadu intayna ku kululaan maad aqalka igu celi sidaa buu nabigu ku yidhi لأن رسولك حسن يا حسين أوجعلا مالين مالمها كمدا منبر كيسوى تاغنو خطبتين يا أيا لبدو دو سيرين مسجد كسوغلان خطبة دي انتو كدا دعيب النبي هالكوغي وغتغي وصوحن باريو خطبة دي بكل سو نقدو دميستري مركاسو النبي خطبة دي كسو درو يري لبدا مركان اركان مجوغي كرو إله يو لبدا وان جعله كي جعل هذا جعلو كين عن إله لبدا نعم رسولك يري حسن وحسين سيدا شبابا وأنعم أهل الجنة حسن يا حسين شبابك الجنة قلدونا لبدا أقص الرئيس أقبر وقبضا ويا برسولك يدي عليه الصلاة والسلام ولبدا أهل الجنة فاطمة ويدودا وأهل الجنة أبوه علينا وأهل الجنة ويا ريركا وأهل الجنة نولشود سدي كل سنين ماديا ماتريال يلعقوا ما يدسنين نولشود الدين يا أخلاق ونكسب بكل سنين ومركو النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة مركو النبي علي ودسايي ما تقول ستدابو كيد علي يوم مركب يا رسول الله ده محاكو قرصدا وحاكو قرصدا ما بحيه مركب النبي كويري ده واديك هايستما ما ركتاني دغالكي بدر مركي لا غلي بريهي اد غالدا كسو قادنا ee lagu siiyay ma taa uu iibisada dirac waa bir la gashado weeyaan iyo gaashaankii intood iibisid inta ay noqoto ma ragtaan meher ma faadwa meher uga dhigtida markaa buu waa hagaag nabi allah waa yahay buu markaa buu nabi faaduma waan ku siiyay orado magaalada galo birta uu iibiyo waxay lacag noqoto noola soo noqo wa fi riwaayatin farq alhadidana hasiiside oo meher bahan uga dhignay bal wuxuu la kale buu nabigu ka yiri lacag 4 dirham oo cali la yimid 4 dirham buu la yimid guurkii Fatima inagana maanta zamankeena Soomaalidu gabdhaha way iibiyaanba oo madaha bay dhalay hadaa lacag dul dhigto dacal lacag ku iibiso
ما حسن حسين وكل دل بعد موديسا ماي جور بجور وكخرش بدن يحي وكإسراف بدن يحي وكبرك جور بجور وكخرش يحي أيو كبرك بدن يحي جور بجور وكمعصية بدن يحينا وكبلا بركة وجو هدان دوني أولاد بركيسن هي أمة بركيسن هدان دوني إنه لكن كي إسلام كوانا نولشنا صل وقدرنا صل سيس وقدرنا نولش إسلام كمارك تاني لكن كاقول بركاب عائش النبي يقول فاطمة ويمدود أبواه كل سوف علم كل شيء ويا مستمرك إلى قبضة بكر كمرك لما هرينا يو سكوت كيجوا علامة الرضا باليدي بركاب النبي يقول قد فضلنا قات أو كسيحدا بركتنا قاد أو بركدا ويلكنا قاتو بيكون ناصد أبو رسول كيودي ساسا لقول سر ريركا حسن يا حسين يكسو جدان بس هذا نلش شاير فضود بلا تعب بلا خرش بلا بوقة أي الله قد سي لأنه وحيد دلين لا ويل أهل الجنة أي دلين فاطمة وأهل الجنة ويا علي نوا أهل الجنة وعلي تمنك الجنة الله بشاريه بكجرة فاطمة أين أهل الجنة وحى عضينا يا حديث كنا بيجين وكير فاطمة هوينا آموس أهل كي قفك دمشق يقصو حق وادق آموس قفك يقدم إيمان الدونا وادق آموس والنبي كوري عليه الصلاة والسلام مربع دون النبي محمد وادق قدم إيمان إسا وأهل الجنة ويان جنة قال إسا فاطمة رضي الله عنها ويلشدنا وأهل الجنة ويان زوج شيخنا وأهل الجنة ويان ريرك الدين بالله سي الله كعبس بالله سي معصية إيه هيسو إيه سنحياء إيه اللغوي إيه قفلت إيه دين لآن إيه هوتيلو لغو مدسينة ستبير أو فضود أيا ريركا ونبي محمد وكل سي مركا تربية دا سؤوبت كأن أساسا نقدقنو دين تينا تربية دا إسلام كأساسا نقدقنو والنظام كان ما أنت أي مجتمعين أنت أبدا يكونوا لهين ويل كان لليه هاي بل قبض لك علي إن أنتنا لليه هاي بل أدقنا نن صوت دونو أدقوا مدن نولك علي لليه هاي وخلاف الشريعة شريعة الإسلام قارن تسوي كدو أنت إن أنت هذا للرباين أدوها ساوتك أبها للرباين أنت زنوها ساوتك أما هاينا ترى هذا إن أنت هذا wargabadh baan hayay ma ku dhisaa ninka diin iyo tabiicad wanaagsan aad ku tuhmayso inaad inantaada u bandhigtaa ceeb maaha oo Umar bin Khattab radiyallahu anhu ayaa xafsan ninkeedii markuu ka dhintay waxa uu u tagay maaragtaane Usmaan buu u bandhigay Usmaan baa u jawaabo ku yiri waan fikro waan isku noqdo sanadka maanta aniga waxa ii soo baxday inaan guursan baa ii soo bixinay ga raalli ahaw haddana Umar Abu Bakar buu sheegay أبو بكر هاي ما يمنا مورن وكأم سمركا مدير كذب حفصة وحصاد النبي محمد عليه الصلاة والسلام مالنتي النبي محمد وحفصة وجورسدي كذب أيوة ما ركتاني وحاي مدي عمر بن الخطاب أبو بكر بأسركي أبو بكر بهذا الكقاتو كويري يا عمر بلا أوركاد وحيقو هيسا هاوا كوجها يا أبو كويري وأيوه هذا قهرت حفصة وحنو بنجا عثمان وجواب الجواب وافية هذا كان كوش شيكتو كوب بنجي هذا قلنا إيماد جوابنا وادقاء مسلم هذا يقول جوابي ويدي بيقول ها يا ما يمدي يورا ويدي تاسن أورك كوجها يا أبو كويري لأن مركاسو أيوري والله عمر وصفر يسو أنا كارر لقلين أرنكاس نبي عليه الصلاة والسلام أيان أوجا وحفصة هذا الهيا هذه نبي محمد ودافع لها وحفصة إسكدين لها أنا كأجورسل لها وعن ما أنت كوجو جوابي ويانا صرت أنا نبي قلنا قد حيس إنا شيئا دي دنابو كيد وفق خيرات كتوم إن أنت هذا لا دونتا والدين إن أنت هذا ترى هذا نلا عقل أو شغية ولك علينا والدين لآن ويان قولك والله مال ديا نك إنك ويل كأجا مرك هذا سيسرا مال ديا أدقو سيدي نيكل أورنجري أنس بن عمار الأصمعي أبيه بأو يري بالليل سقوا أنور كقبين بالليل عروس باتها عاو عروس باتها قبضينا والله كيني وريركو جينا وينو أقولادين عقد يقوم بحري قبضي باللقوم مهرين يا إساء ديار جرو صامر وصو ديار جروبي لأن مركب بريقة دليرادو أبي هو يكون عسنايين دليراد الزمن كان المدح كوسعته موياني مدح ما هبا
kuwa zamankeenan intooda u badan caqli ay iyaku lahayn bay ku socdaanba kuwani allah inoo soo hadeeyo markaasuu u yimidayo caqdigii oo gabadhii baa loo meheriyey markaasaa lagu yihi gabadhii caroosadii waata qolka kugu jirtee orada dee waa caroosadaadii u tago isbarta oo dee salaamo halkaa caawa dee maaragtaan caroos baa tihiine markaabuu u galay baa la yidhi mar alle markuu galay isagu waa nin dhallinyaro ah oo laankaa la egoo dheer oo qurux badan oo cad iyaduna waxay noqotay inan gaaban oo kuusan oo isaga aanan cajabin nimanka dhallinyaraduna daa'iman waxay iska jecel yihiin gabarh qurux badan oo loo abuuray sida iyaku ay doonayaan inay helaan bay jecel yihiin mana helayaan ogow daadna markuu galay uu salaamay buu arkay gabadh nuuciyadday tahay markuu arkay buu ka naxo uu ka murugooday meel laga laabtana ma joogo dee gabadhii waa la meheriyey aabbihii hooyaana u dooray oo u keenay markaasay gabadhii intay aragtay isaga quruxdiisii iyo dhararkiisii bay tidhi ha murginoo ha murugoon bay ku tidhi waxaa laga yaabaa waxaad ku faraxdo khayr leh oo baraka leh ilaahay inuu caloosheeda kuu soo dhex mariye hadalkaygiibu ku qanco wuxuu is yidhi kollay tan waxaa lagugu dooray khayr lagu ogyahay weeyaan iska barakayso habeenkiiba uu barakeeyey baa la yidhi ilmihii u horreeyey gabadhaasi ay ku curatay wuxuu noqday imaam maalik binu anas buu noqday baa la yidhi imaam daar alhijra imaam ula'imma imaamkeenna shaafici allah u naxariistay macallinkiisii bay gabadhaasi ku curatay gabadh diin baa laga eegay qurux lagama raacin dhaqaale lagama raacin nasabkay ka dhalatayna lagama raacin gabadha waxaa laga soo raacay diinteedaa laga soo raacay diinteeda fadfar bidaata diini taribad yadaaka waa kii nebigu lahaa gabadha diinta la qaado oo dooro haddaad doonaysa inaad liibaantid buu nabigu yihi taabaad ku liibaaniye gacantaada kugu barakoobaysa dana gabadha diinta loogu soo doortay inanka labadiisa waalid baariga u ahaaye labada waalid go-aankoogiiyo taladoodii dhaafi waaye waalidka u hoggaansamay waxay ku curteen imaam maalik binu anas bay ku curteen baa la yidhi caalim cilmigiisu ilaa yowma alqiyaama adduunka uu yaallo oo madhab min madaahib alarbaca uu ka mid yahay madhabkiisu uu sheekhna u yahay ayaa maaragtaanay gabadhaasi ay ku curatay dad barakaysan laba awlaadoo barakaysan hadday isku tagaan dhal barakaysan bay dhalayaana ogaada marka nolosheenna diin ha ku salayno oo guryaheenna qur-aanka ha ku akhrisanno oo guryaheen dhexdoodana ubadkeenna sunnada nebiga ha ku tarbiyadayno oo guryaheenna tacliinta ha ka qabanno oo guryaheenna dacwadda han u furno oo raggeenna iyo awlaaddeenna iyo qaraabadeenna wixii raggana waxaad ku tarqiibisaan ood ku dhiirigelisaan war diinta dadaal xil baa inaga saarane ordo ininkuna qaybtiina diinta dadaalkeega ka soo qaata laana ragga mu'miniinta iyo haweenka mu'minaadka inay diinta isku kaalmaystaan oo aayad qur'aana bal salaada iyo zakada iyo taacadda ilaah iyo taacadda nebiga waxaa laga hormariyey oo la yidhi waxay isku kaalmaysanayaan gabadha mu'minadda iyo ninka mu'minka inay ilaahay diinkiisa u gargaaraan oo dadka wanaagga ay faraan oo ummadda xumaha ay ka reebaan oo salaada oogaan ee zakada la yimaadaan ilaahay rasuulka ay adeecaan amra bilmacruuf wannahyi cala almunkar ayaa laga hormariyey salaada iyo zakada iyo taacadda ilaahay iyo taacadda nebiga waayo waa seeskii diinta islaamka in diinta laga shaqeeyo saxaabiyaadkuna diintan waa u soo dadaaleene inaguna insha allahu tacaala dadaalka diinta guddooma oo maaragtaanay guryihiina xalaqada ka qabta oo xalaqaadka haweenku meelahay ku qabsanayaana ka qayb gala oo madaarista ku xidhnaada oo aqaladeenna qur-aanka ku dhex akhriya oo hooyadu ilmahayga ha tarbiyadayso hadday inan tahayna beritoole hooyo unbay noqon doontaaye ubadkeenna xagga diinta aan ula kacno haddaan ubadkeenna xagga diinta aan ula kacno waxay ka dhigan tahay ummadda soo socotay ina bedeli doonta ayaan meel wanaagsan iyo dariiq wanaagsan u soo jeexna bay ka dhigan tahay